guddi u dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay ka hortagga xanuunka coronavirus ayaa maanta waxay kulan degdeg ah isugu yimaadeen aqalka madaxtooyada Somaliland. guddidani ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dalka la geliyay xaalad degdeg ah oo socon doona muddo 4 toddobaad ah kaas oo laga hortagayo xanuunka coronavirus. go'aamada ay soo saareen guddidani ayaa waxaa ka mid ahaa in la xidho dhammaan goobaha waxbarashada, in la joojiyo duulimaadyada diyaaradaha ee ka imanaya dalalka qaarkood. waxaana go'aamadaasi warbaahinta u akhriyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland waxaana ka mid ah hadaladiisii. waxay kala yihiin kow xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay, dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxaa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo. waxaa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka. dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah isku diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow. goobaha waxbarashada dalka, dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dawladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha, iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto, iskuullada hoyga ah ee boardingka ah, xarumaha agoomaha wax lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dawladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda. waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 19 bisha 3aad 2020. masaajidada waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo. sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020. dhammaan imaamyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka. bulshada waxaa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weyse qaadato guryahooda iyo meheradahooda. qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda. waxaa la farayaa imaamyada inay ducada qunuudda ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkani. isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Somaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020. socdaallada iyo duulimaadyada diyaaradaha, dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku haleyn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee Jamhuuriyadda Somaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo sameyn doono baaritaan dhammaystiran laguna sameyn doono garoomada diyaaradaha ee Somaliland. waxaa la joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha, Talyaaniga, Iiraan, Faransiiska, koonfurta Kuuriya, Spain, Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo maalinta berri laga bilaabo 19 bisha 3aad 2020. waxa dhammaan muwaadiniinta Somaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka dibadiisa. waxa dhammaan qurbo-joogta reer Somaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaallada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso. guddiyada gobolada ee u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus si loo xoojiyo u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus waxaa la dhisay guddiyada gobolada oo ka kooban
guddida nabadgelyada ee heer gobol oo ay xubin ka yihiin isudubayaasha wasaaradaha ee soo socda wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka iyo wasaaradda horumarinta waxbarashada cabdiraxmaan ibraahim dalka TV hargeysa.